وعليكم ورحمة الله وبركاته داود halka soo joogtaan ku soo dhawaada channelkayga Bishaan Maxamed Bardar iyo barnaamijka Saakii Suuq Clipsiga ciyaartooyda aan ku soo qaato wararka ugu xiisaha badan dhanka suuqa iyo warbixinaha xiisaha ku dhanka suuqa wararka dhanka suuqana waxaa ka mid ah kooxda Championka Serie A ah iyo Juventus ay doonayso inay la soo siyaasato xidiga qadka dhex u maareeya kooxda Arsenal Ramsey qaabilaasha ay ku doonayaan dhamaadka raadkan wararka kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Bayern Munchen ayaa doonaysa in ay kula dagaalanto kooxda Borussia Dortmund xidiga kooxda Chelsea ee 18 jir ku dhashay wadanka England ee weerarka ka ciyaaray Callum Hudson-Odoi kaasoo doonaya inay soo qaataan wararka kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Juventus ayaa xiiso weyn u haysa 25 jirka Manchester United una dhashay wadanka Belgium ee weerarka ka ciyaara ee Super Romelu Lukaku wararka kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Arsenal ayaa rikoor ku soo qaadanaysa xidiga Nicolas Pepe sabab ku aadan in kooxdiisa Lille ay ku doonayso 70 milyan 23 jirkan u dhashay wadanka Ivory Coast ee garabka duula ayayna Arsenal u jebin doonaan bangigooda sidii xidigan ay ku yeelayeen warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Chelsea ayaa doonaysa inay la soo xato xidig West Ham 29 jirka u dhashay wadanka Austria ee weerarka ciyaara marka Arnautovic kaas oo West Ham ku tirsan Blue Chelsea ayayna doonaysa xidigan in ay soo warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Bayern Munchen garabka duula ee Frank Ribery oo 35 jir ah ayaa ogolaaday in hal sano dheeri ah uu saxiixo kooxdiisa kubadda cagta ee Bayern Munchen warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Lyon iyo xidiga Faransiiska ka dhex u maareeya ee Nabil Fekir oo 25 jir ah wuxuu ku dhow yahay in Liverpool ku biiro xilli ciyaareedkan xilli sidoo kale loolanka ay ku soo biirtay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah kooxaha Inter Milan iyo AC Milan iyaguna waxa ay doonayaan xidiga lagu magacaabo Aaron Ramsey oo 27 jir ah balse waxa ay isaga dhaafeen mushaaraadka sanadle ee xidigani oo ahaa mid sareeya warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah xidig u dhashay wadanka Talyaaniga ee weerarka ka ciyaara Manolo Gaviotino oo 27 jir ah waxaa doonaysa kooxda kubadda cagta ee Fiorentina iyagoo doonaya inay dib ugu soo celiyaan horyaalka Serie A dalka Talyaaniga xilli uusan bandhig fiican ku qaadanaynin horyaalka dalka England ee Premier League. Barnaamijka intaas aan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulanti dambe.